مات فللأمجاد بانيها ومن يسعى إلى العليا. nimankii ansaarta ahaa ee reer madiine ahaa radia allahu canhum waardaahum ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muhaajiriintii maka laga soo eriyey ee laga soo saaray nebiga waa la soo saaray ukhrija min baldatii soo dhoweeyey ee soo dhoweyn keliya ma aha inay martiqaadeen oo meelo dejiyeene boqorradii iyaga ka dhigay oo nebi moxamed sala allahu alay wasalam ra'iis ka dhigtay ee ka tanaasulay iyaga boqortooyadoodii waxoodoo dhanba ka tanaasulay ee nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii la dagaalgalay fii kulli lmayaadiin shuhadada iyagu ugu badnaa intaas oo sano markay soo socotay sanatu lfatxi wathaamin alhijri sanadii sideedaad ee maka la furtay ilaan maka waa waddankii nebiga weeye calayhi salaatu wasalaam reerku waa reerkiisii waa reer quraysh oo uu nebigu intuu cafiyey ay soo wada islaameen badidood odayaashii oo markii ghaswatu xunayn loo soo guddoomay ay haniimo fara badan uu nebigu calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisii ay heleen nebigu sala allahu calayh wasalam xoolihii fara badnaa ee khanaa'imta ahaa wuxuu u qaybiyey kuwii shalay soo islaamayee reer maka ahaa abu sufyaan 100 halaad siiya aqrac ibni xaabis 100 halaad sii hebel iyo hebel cuyaynat ibni xusnin 100 halaad sii fulaan 100 halaad sii nimankii ansaarta ahaa ee reer madiine ahaa intaa soo kifaaxayay hal neef oo ariya ma siin hal neef xataa ma siin xoogay marka qolooyinkii waxaa la yidhi dhallinyarada ahaa odayaashoodii ma ahe dhallinyaradii baayar haddoo waxay dhaheen qad wallaahi wajada rasuulu llaahi qowmah xaqiiqo waxay tahay nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkiisii buu helay reerkiisii ayuu helay oo hadda muxuu sida nebigu u yeelay haddii waa reerkiisii waa ilma adeeradii waa adeeradii ya waa nagu soo meelgaaray oo kale hadal saasaa yaa shuush baa yahay marka sacd ibnu cubaada radia allahu canhu wa ardaahu wa sayidu lkhasraj ahaa baa nebiga u yimid sala allahu alayh wasalam oo ku yidhi yaa rasuula allah ina hada alqowm ina hada alxaya min alansaar wajaduu fii anfusihim xayigan oo qoladeena reerkan xoogay qalbigooday wax kugu yar qabteen oo qaybtan aad qaybiseedan iyaga waxba ka siinin bay ka xumaadeen nebigu wuxuu yidhi tabiibu lquluubi buu ahaaye murabbi lajyaalna wuu ahaaye wa anta yaa sacdu adiga sacdow bal waran xaalkaagu muxuu yahay wuxuu yidhi almaru min qowmihi runtaa kuu sheegaya almaru min qowmihi ninku reerkiisu buu ka tirsan yahay yacni waxoogay waa igu yar jira markaa nebigu wuxuu yidhi soo ururi ii soo ururi meel isugu keen meel buu isugu keenay nebigu waa u khudbayay calayhi salaatu wasalaam sida caadadiisa ahaan jirtayna biabii huwa wa ummii rabbigiisuu ammaanuu bilaabay ahnaa calaa rabbihi waxamida allaha tacaala kadibna wuxuu yidhi yaa macshara alansaar ansaarey maa qaalatun balagatnii cankum maxay tahay war ama oraah ama weer iga kiin soo gaadhay wajidatun wajadtumuuha calaya fii anfusikum iyo xoogay calo ahoo aad qalbiga iigu qabateen maxay tahay arrintaani waa marka uu hadalkaasu yidhi alam aatikum dulaalan fahadaakum allah miyaanan idiin iman idinkoo baadi ahoo asnaamta caabudo mushrikiinoo ilaahay idinku sababtayda idinku hanuunin alam aatikum caalatan fuqaraa masaakiina idinku miyaadan idiin imaninoo faaqnaakum allah ilaahay uu maaragtay idin deeqsiiyo aqniyaa ilaahay idinka dhigay alam aatikum acdaa'an idinku acdaa ahoo isgoosgoostoo isdila miyaynaan idiin imaninoo faallafa allahu bayna quluubikum oo ilaahay subxaana wa tacaala quluubtiinna isku dumin maxay tahay miyaanaan nebigu calayhi salaatu wasalaam waa suu doctoorku sheegayoo ma jeclayn weligiis inuu cidna yani gallad u sheegto laakiin arrintan uu u sheego wuxuu yidhi miyaanaan saas ahayn kulligood waxay dhaheen balaa yaa rasuula allahi alla ilaah waa sax sidaad sheegtayna weeye walilaahi walirasuulihi almanu waalfadlu manni gallad iyo fadlina ilaah iyo rasuulkiisa iskale cid kale oo wax kule ma jiraan wuxuu yidhi ajiibuunii yaa macshara alansaar ii jawaaba jawaabtu saamahe ii jawaaba waxay dhaheen qad ajabnaaka yaa rasuula allah waa ku jawaabnay lilaahi walirasuulihi almanu waalfadlu wax kaloon sheegi karna male manni iyo fadli ilaahay rasuulkiisa anagu leh wuxuu yidhi yaa macshara alansaar wallaahi baan ku dhaartay
lain qultum haddaad tidhaahaan hadal uu odhan doono lasadaqtum run baad ku sheegi lahaydeen wala sudiqtum waana la idiin rumayn lahaa oo waa maxay ataytanaa waxaad noo timid mukadaban adoo ah mid lagu soo beeniyey oo reerkaagu ku soo beeniyeenoo fasadaqnaaka waanu ku rumaynay wa ataytanaa waad noo timid dariidan mid la soo eriyey adigoo ah oo fa aaweynaaka waanu ku soo dunnayoo waanu ku soo dejisanay wa ataytanaa caa'ilan faqiir adigoo oon waxba haysanay baad noo timidoo fa aasaynaaka waxaanu haysanay baanu wax kaa siinay saa haddaad tidhaahaan wallaahi run baad ku sheegteen waana laydin rumayn lahaa bal fiiri hadda hadalkii hore iyo hadalkan fiiri kadib buu cilaajkii intaasi waxay ahayd marhamkii iyo ma garanaysaa bomaatadii bay ahayd cilaajkii dhabta ahaabuu marka yuu qalbigooda ku daaweeyey wuxuu yidhi yaa macshar alansaar war dhegaysta haddaba awajadtum fii anfusikum calaya fii lucaacatin min addunya ma waxaad qalbiga igu qabateen xoogay yaroo hamba adduunye ah miyaad qalbiga igu qabateen fii lucaacatin min addunya hamba yar oo adduunye ah oon u kala qayqaybiyey oo ata'allafu biha quluuba qowmin xadiidi cahdin bilislaam shalay soo islaamay oon raba qalbigooda inaan ku soo dumo wawakaltukum ilaa maa jacala allahu fii quluubikum min alkhayr khayrka iyo iimaanka ilaahay uu qalbigiinna uu geliyey aan idiin daayey oo kuwa aan xoogay yaroo adduunyo oo hamba aan u qaybiyey miyaad qalbiga igu qabateen midda kale wuxuu yidhi amaa tardawna yaa macshara alansaar macshara alansaari miyaedaan raalli ku ahayn an yarjica annaasu bishaati waalbaciiri watarjicuu antum birasuuli illaahi ilaa rixaalikum miyaydaan raalli ku noqonayn dadku inay ri iyo rati la noqdaan idinkuna rasuulkii ilaahay aad la noqotaan oo guryihiinni dib ugula noqotaan miyaydaan taa raalli ku noqonayni wawallaahi baan ku dhaartaye low salaka annaasu shicban dadka oo idil adduunka jooga hadday waddo qaadaan ama waadi qaadaan ansaartuna ay waadi qaaddo waadigaa ansaartu ay qaadday baan qaadi lahaa walowla alhijratu hijra haddaysan jirin oon ilaahayna kala soocin lakuntu imra'an min alansaari ma aha qowmkiisuu helay ma aha waaxid oo fardi oo ansaarta ka mid a ayaan noqon lahaa laakiin ilaahay baa muhaajiriin iyo ansaar noo kala saaray allahuma kfir lilansaari وأبناء الأنصار وأبناء الأنصار بني بكدعي إله إياه يكوي دلين يكوي سيد دلين ودم بداف ما حد عاي مرك وحوي سعد بن عبادة فنظرت إلى القوم قوم كيبان ساءوا في ريو فإذا لحاهم قركودي مبتلة من البكاء وهنتي أي أوين اللي انتي إنه ذا كسو قبتي أي قركو ذا قوي شيء ويري يوغو ماشي وحيكا كعين لي أرانيه رضينا برسول الله قسما وحظا رسولك إلهي من رالي كن نقني إنه قيب نو نقضي يحظ نو نقضي وقريه كل نقضي صلى الله عليه وآله وسلم مركا كمون على جنين شيء من الدنيا سنبو شيء ولكن بالإيمان استثمر ما في قلبهم من الإيمان مركا إيمان كأنه كددالو سيغينو كل بانينا دادكاس ومداسنا أنه إيمانك كلا ددالو